Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu maanta ku dhawaaqay mid kamid ah go'aanadii ugu cuslaa ee ka soo baxa tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2022 xilligaas oo la soo afjaray dagaalkii uu la galay kooxda TPLF ee gobolka Tigray ee Itoobiya. Farintoos oo ku soo gudbiyay xisaabaha uu ku leeyahay baraha kala duwan ee bulshada Wasaaraha Itoobiya. Waxa uu ku sheegay in dhamaatay muddadii ku meel gaarka ahayd ee loogu talagalay maamulkii lagu soo dhisay heshiiskii Pretoria ee dhinacyadu ay ku gaareen dalka Koonfur Afrika kaas oo uu sheegay inuu muhiim u ahaa dalka Itoobiya gaar ahaan marka laga hadlayo in la gaaro heshiis xabad joojinaya nabad ku soo dabaalid ka dhacda guud ahaan dalkaas Itoobiya. Abiy waxa uu shacabka gobolka Tigray ugu yeeray inay si degdeg uga shaqeeyaan qaabkii iyo habkii loo dhisi lahaa maamulkii deegaanka caynaanka u qaban lahaa wuxuuna si gaar ah u tilmaamay in dadweynaha Tigray ay door ku yeeshaan doorashada qofka noqonaya madaxweynaha maamulkaas maadaama loo ogol yahay inay fariimo ku soo diraan emailada lagu wada xiriiro si ay u gudbiyaan qofka ay doonayaan in noqdo madaxweynaha xukumi doona maamulka ka dhisan magaalada Maqale ee waqooyiga dalka Itoobiya. Warbixintan waxaynu ku eegaynaa sababaha kalifay in la kala diro maamulkii gobolka Tigray nuxurka fariinta Abiy Ahmed waxa ku kalifay inuu dadweynaha fariintan u diro iyo waliba jawaabta laga filan kara garabka hubeysan ee kooxda TPLF oo inta badan gacanta ku haya gobolka Tigray.